الحمد لله إلهي بانكم mahadinaynaa masaajidka inoo idmay inaan fadhiisano masaajidu waa khayrul biqaac dhulkan aan dul joogno meelaha ugu khayr badan ee ilaahay jalla wa ala agtiisa laga jecel yahay waa masaajida أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق نبي عليه الصلاة والسلام وحاول نوشيغي دولك مالها إلهي وجعل يهي ومساجد ديسا مالها إلهي ونعب يهينا وأسواق دويان سوق وماشى التجارة أدوية أي كهر قشو masaajiduna waa meesha ay ka hirgasho tijaarada aakhirada tujaaru dunya aswaaqda ayaa laga helaa tujaaru aakhirana meesha mar walba laga helo waa masaajida weeyaan Sufyaan ath-Thawri rahmatullahi alayhi ayaa oran jiray al-mu'minu fil masjid kas-samaki fil ma' qofka mu'minka masaajidka dhexdiisa marka uu joogo wuxuu la mid yahay sida kalluun biyo ku dhex jiro oo kale kalluunka noloshiisa oo dhan waxa lagu xidhay waa biyaha hadii biyaha uu ka dhex baxana isaga dhibaato oo dhimanaya muuminkana meesha uu ku noolaada waa masaajid meesha qalbigiisu ku xasila waa masjid meesha uu diintiisa ka barta waa masaajidka meesha muuminku ilaahay kaga xidhmaa waa masaajidka noloshiisa muuminku meesha uu ku toosiya waa masaajidka meesha ilaahay kaga xidhmaana waa masjid muslim baan ahay masaajidkana kuma xidhni waxay ka dhigan tahay ilaahay cilaaqo lama lihi bay ka dhigan tahay ibn Abbas radiyallahu anhuma ayaa la weydiiyo lagu yiri ninka salaada jumcadana aan soo xaadireynin salaada jamacana aan ka soo qayb galeyn waxa oran lahayd markaas uu huwa fi naar haduu sida ku dhinto naar buu ku dhex jiraa buu naar ninka salaada jumcana aan soo xaadireyn shanta waqtina jamaca aan laga helaynin jamaca aan ku xidhnayn jamaca muslimiinta haduu sida ku dhinto naar buu ku jiraa buu marka muuminku meesha uu kaga xidhmaa rabbigi waa masaajidka meesha uu akhlaaqda wanaagsan uu ka kasbada waa masaajidka meesha uu shariicada islaamka iyo diintiisa uu ka bartaa waa masaajidka meesha qofka dadnimadiisu ay ku hagaagtaa waa masaajidka marka noloshiisa dhan baa masjidka ku xidhan qofka muuminka sida ilaahay ugu xidhmaayo masjidku ka baran sidoo labada waalid u raali gelinaya masjidku ka baran sida uu ganacsiga u hirgelinaya ganacsigiisa masjidku ka baran sida uu jaarkiisa ula dhaqmayo cilmiga masjidku ka qaadan sida uu ganacsanayana cilmigeeda masjidku ka qaadan haduu ummad maamulayana xabka u maamulayo cilmigeeda masjidku ka qaadan muuminku masaajidka markuu dhex joogo baa la yiri waa sida kalluun biyo ku jiro oo kale والمنافق في المسجد كالطير في القفص qofka munaafiqa masjidka dhexdeeda markuu joogana wuxuu la mid yahay shimbir banaanka uu iska duulayo iska xayaadaya laga soo qabtay oo qafas lagu dhex riday meeshiisi ma laana shimbirku daa'iman meesha loogu talagalay waa hawada yatiir fi الهواء qafas marka lagu ridana waa ciriiri buu dareemaya munaafiqo masjidka marka uu soo galana wuxuu la mid yahay sida maaragtaan shimbir qafas lagu dhaxriday buu la mid yahay masaajidu marka waa meesha ilaahay arlada ugu jecel yahay malaa'iktu xataa marka imanayso masaajida ka bilaabaan safarkooda masaajidka qofka ku xidhan ee ku taxan wuxuu noqdaa jaliisul malaa'ika qof mar walba malaa'ikta la fadhiyo buu noqonayaa laana majliska nimaka aan fadhina waxa uu nabigu noo sheegay malaa'iktu inay la fadhiisanayso inna lillahi sayyara ba nabigu inna lillahi malaa'ikatan sayyara
ilaahay waxa uu leeyahay malaa'ig arlada dusheeda ayay socdaan yaltimisuuna majaalis adh-dhikri majaalista ilaahay lagu xusayo ayay raadiyaan malaa'igta kamida markuu arko wuxuu leeyahay halummu ilaa xaajaatikum malaa'igtii kale ayuu ku leeyahay muraadkada arlada u timaadeen eed kala haydeen aniga arko la kulme kaalaya buu leeyahay dadna malaa'igtu markaas garbahooga ayay saaraan baa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ilaa samada adduunyada ayay buuxinayaan majliska markay ka noqdaan ilaahay jalla wa ala dhinaciisa u noqdaan buu ilaahay ku odhanaya maanta maxaad la kulanteen oo maxaad ku urursanaydeen waxay odhanayaan adoomahaaga kamida ayaan la kulannay adigay ku weyneynayeen adigay ku ammaanayeen adigay ku nazahayeen adigay kugu mahadinayeen markaasuu ilaahay may arkeen aniga may arkin hadday arki lahaayeen bal ka warrama baa ilaahay yidhaahdaa markaasuu leeyahay malagii hadday kuwa ku arki lahaayeen ayagoo adiga aanan ku arkin bayba ku ammaanayeen oo kugu mahadinayeen oo ku weyneynayeen hadday adiga ku arki lahaayeen sida hadda ay ku ammaanayeen ee ku xusayeen si ka sii ziyaadsan bay ku hadal hayn lahaayeen markaasuu ilaahay yidhaahdaa maxay weydiisanayaan bal ii sheega markaasuu yidhaahdaa malaga jannaday ku weydiisanayaan oo jannadeeda may arkeen may arkin hadday jannada arki lahaayeen bal ka warrama siday hadda jannada ku weydiisanayaan si ka daran ayay jannada ku weydiisan lahaayeen markaasaa ilaahay yidhaahdaa maxay iga magan galayeen naarta oo naartayda may arkeen maya hadday arki lahaayeen bal ka warrama hadday arki lahaayeen sida hadda ay naarta kaaga magan galayaan si ka sii daran bay kaaga sii magan gali lahaayeen marka u dambaysa ilaahay malaa'igta wuxuu ku yiraahdaa fawshidukum ya malaa'ikati anni qad ghafartu lahum malaa'igteedii marag waxaad iga noqotaan adoomahayga halkaa fadhiya aniga dartay u fadhiyay inaan dambigoodii dhaafay buu ilaahay yiraahdaa malag baa hadloo yiraahdaa fiihim fulaan adoon hebel la yiraahdaa majliska ku dhex jiray isagu muraadkiisu ma ahayn inuu xuskaaga dhageysto inuu ammaantaada umu fadhiisane laakiin muraad kale uu meesha ka lahaa markaas ilaahay odhanaya humul qawm laa yashqa bihim jalisuhum kuwaas waa qoom kala fadhiistaan ama hooga isagana dambigiisa dhaafa baa ilaahay ku yiraahdaa majalistan ilaahay aan ku ammaanayno ee diinteena macaan aan isku baraarujinayno ama quraan aan ku akhrisanayno ama xalaqaat ilmi masaajideen aan kaga qayb galayno ama kaliga intood miskiidka aad fadhiisato aad ku dhikrinaysid aad waqtigaaga adduunyada intood ka soo goysid aad masaajidka ilaahay ku camiraysid dambi dhaaf baad ka helaysaa qalbiga ayaa kuugu xasilaya malaa'igta ayaa kuugu ducaynaysa ilaahay baad ugu dhawaanaysaa walbahaarkii adduunyada ayaa kaaga baaba'aya masaajidka huwa alladii anzala as-sakiinata fi quluubi al-mu'miniin liyazdaduu iimaanan maca iimaanihim sakiina qalbigeena ku soo degaysa sakiinadu waa maxay iimaankii aad lahayd baa iimaan kuugu ziyaadaya aqoontii aad lahayd baa aqooni kuugu biiraysa cilmigii aad lahayd baa cilmi lagugu daraya qurbi min allah hadba intaad ilaahay aad u dhawaan jirtay in ka badan ayaad ilaahay u sii dhawaanaysaa markaad masjidka ku nagaato marka masaajidka hadduu qofku xaqiisa u bato jaliisul malaa'ika ayuu noqonayaa qofku hadduu xagga suuqa u batana jaliisu shaytaan buu noqonayaa shayaatiintu la fadhiisanayaa halka masaajidana malaa'igtu ay imanaysa baa la yidhi aswaaqdana shaydaan ayaa calankiisa ka taagto junuudiisa ka kala dira marka qofka suuqa u bata tabiicadaha abaaliista tabiicadaha shaydaanka ayuu yeeshaa shaydaanka dabeecadiisu waa maxay al-isyaan wal-kibr wal-hasad wal-bughd nacam wal-kufr wal-iyadu billah sifaadka xun ee damiimada ee qofka lagu arkana ilaahay uu ka dheeraanayo ayaa qofka ku beeranta hadduu qofku majaalista suuqa u bato lidaalika nabigeenu sal allahu alayhi wasallam saxaabadiisa uu ka ilaalin jiray suuqa inay fadhiistaan iyaakum waljuluusa fi turuqaat yakoo suuqa fadhiyo maalin arkay wuxuu ku yidhi jidadka aad fadhiisanaysaan baan iniiga digayaa buu rasuulku yidhi maa lanaa min majaalisina buddun nataxaddathu fiiha bay yidhahdeen meel kaloon ku sheekaysano ma haysan nebi allow sheekadoodu maxay ahayd bay kula tahay diinun bay ka sheekaysanayeen jaahiliyaddii noloshay ku jireen iyo islaamka macaankayga isbarbar dhigayeen diinta nebi maxamed ku soo degtay bay mar walba majaalista suuqooga isku barayeen markaa buu nebigu yihi haddii dariiqa fadhigiisa aad ka maarmi weydaan oo meel badiilood fadhiisataan oo meesha meel ka duwan aanad haysan waa hagaaga dariiqa xaqiisa siiya buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam
وحق طريق نقول يا هو محي وحاول النبي يقول غض البصر عنده إن الله أبو النبي يقول كف الأذى ذاتك طريقة مرة أنا دبتي إنك الله أبتوك هيستبو النبي يقول رد السلام ذاتك طريقة مرة يمرك إن سلامنا سلامته وعلي يقول أمر بالمعروف ذاتك طريقة مرة يبو النبي يقول وناقي خير كفر وخير كوشيغا نهي عن المنكر ذاتك طريقة مرة المنكر شرعك وح إنكرسن وح شرعك إسلامك إنكري ذاتك أي نلوشو ذا كم موقته منكرك كرب أبو رسولك يقول شنتا قصلا ضد قفك هدو لي هاي طريقة أو فريسن كرا شنتا صفة هدو قفك وصل لي من كريم طريقة وحو كقاضية دنبي ومو كقاضية يقول إنه قفك عنده سيلالي وقعنتي سكا إلالي مسلمين تدبتون سلام هدي الله سلامنا سلامة إنه علي ذاتك وناقة إنه فرو حماهن أو كريب الله نسي صفات كاس دين الإسلام هو دين بلارن طريقة حقي سيبك وقاحدك وشيكتي من حق إلهي كقولها أنا ويكون عديسي إلى طريقة ضدك مسلمين تكد حياة أي مريان حقوق ذولية هنا دين الإسلام ويكون شيكتي marka goolay dadkeenan waxaan u badanahay dadka suuqa ka bayac mushtariinay Soomaaliya bayac mushtariin Allah inii barakeeyo amiin hada lana tijaarada wanaagsan ee xalaasha waa cibaado bay culimadu yiraahdaan waa cibaado oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wakiilaha dirhamka aad ilaahay diinkiisa aad ku bixisay iyo dirhamka adoon aad ku xoreysay iyo dirhamka miskiin aad siisay iyo dirhamka reerkaaga masaariif aad uga dhigtay iyo biilkoodii aad uga dhigtay ilaahay agtiisa waxa ajar badan oo khayr badan buu nabigu ka aad reerkaaga ku bixinaysay markuu xalaal yahay weeyaan xaraan hadduu noqdo may bishardi waa inuu ahaado xalaal kasbiga xalaashaana bay culimadu yiraahdaan waa cibaado صدح خصلات هذو كسب جاسي أولى هي عبادة نقن هذو سلهين عبادة نقن مايو مركوه الرئيس كسب جاسي وينه هذا حلال بير وينه هذا مركز هذا حالنا كسب جاد حديث وح معصية وين اللي هو سمينين معصية لقى إلى عليها وإله طاعة دي سوى يكون دافن صلاة وين يكون دافن كسب جاد حديث وح غفلته الدين الآن يانا اللي هو أركن ومقاحيها دركيسا subaxdina quraan bay ku daaraan iyo ku furaan waaga marka dadku indhaha kala qaadaan hees qaaciya bay ku tuuraan idan maalin ku weecanoon waniyo ajaladan quraanka ama wacdigan culimada subaxdii aad daaraysid maad ku daysida wuxuu dadka ii soo galay buuri hadaan taa ku daayo la ilaaha illa allah oo hadaa subaxdii maxaad u daartaa wuxuu waa baraka wiil waa barako baraka ka raadinaya buuli nin waxaan xasuustaa bari magazaan sidoo u dhan yahay khamri lagu wada iibinayo oo nimanka iibinayana arab ay yihiin arab muslimiina ayaan yaa leeyahay nimankaas waa arab bal inakaas dadka ziyaartay u tago ziyaarta markaasaan ziyaaranayo waxa meeshaan dhex joogna waa wada khamri shakalka yagi markuu arkay buu ninkii la yaabo wuxuu yiri ma qolo mutawiciin oo miskiid ka timidaatiin ha lacag buu soo saaray waa kana lacagtan iga qaatay markaas aan ku anagu lacagta ma qaadano dadka awqaadoodaan waqti ka qaadanaa yar waqti nasiyan kula hadalno intaan la hadlaayay baan u fiirsado makhalkan uu lacagta ku urursanayo waxa ku dul qoran aayatul kursiga ba ku dul qoran lacagtu ku ridayn halku ka keenay waa lacagta khamriga markaan la hadlan iyo xadiisay baan ku yiri cilaaqada ka dhaxaysa aayatul kursi iyo meeshaadan maxay tahay baan ku yiri markaas uu wadankan tuugta ayaa ku badan niman baa ku soo galay xabad rasaas ee madaxa kaaga dhifanayaan waxa meesha yalla way qaadanayaan marka aayatul kursina wuxuu hooyadii baa ii sheegtay igu tiri aayadaas waa xifaado weeyaan
waxa leeyahay wixii lagu akhriyay iyo meesha lagu akhriyay ilaahay waa ilaaliyay saasaan ku ogaaday buu aayadani markaa way ilaalinaysaa lacagtaydii buu yidhi marka kasbigu waa inuu noqdo xalaal marka horeysa marka labaadna bay culimadu leeyihiin kasbiga dhexdiisa waa inaan wax macsiya lagu dhex sameyn marka saddexaadna yaqiintaadu inay kasbigan ahaan yaqiintaadu waa inay ahaato waxan waa asbaab dukaankani waa asbaab beertani waa sabab tijaaradani waa sabab tacliintu waa sabab aqalkani waa sabab hoteelkani waa sabab laakiin arsaaqada ilaahay baa haya asbaab weeyaan arsaaqada la soo dhaxmarinaya laakiin rasaaqu waa ilaahay misaal yar baan soo qaadan masaajideena waad aragteen oo baanbadan qasabada markii la furo biyaha ka soo dhaca nin reer baadiye ayaa magaaladii soo galay oo dadka reemiguna dadka waa dadka markay waliba roobabku ay yar yihiin ceelasha ama dixaha biyaha leh xoolaha ku aruuriyaan oo 10 kilometer dhowr iyo 10 kilometer bareerka la sii wada iyo geela iyo xoolaha waa la aruurinaya intaan la xoolaha intaan la kaxayna waxa la sii diraa ceelalyo marka ninkii magaaladu yimid oo qasabadii buu arkay kolka sidan loo wareejiyay biyo ay ka soo daadanayaan markaas uu waa wareey warana ku magaalada miigan ka imanay haraad baa loogu dhintay buu dadkii reer magaalkuna birtan u bay biyo ka helayaan buu Allahu akbar markaas uu wareystay yiri birtan halkee lagu gadaa ay sheegay waxa dukaankana lagu gadaa imsa la siiyaa $5 waba birta qasabada masaajidka ku taalay marka la furo biyaha soo deynaysan ku weydiiyay buu waa tan buu yiri waa $5 waa badwi uu iska qaato wadankiisa buu la tagay dadkii oo arooraya buu ku yiri war joogsada wad war laadihiin magaaladu way ilbaxnimo waxa la gaaray birtaas biyo laga keenay birtii baan soo iibiyay tolkayo biyo ma ka soo dhacayaan ka soo dhicmayaan yani waa misaal wuxuu ku soo noqday ninkii wuxuu rood dhacday buu saad ugu dhacday aanu ta masaajidka aan ku arkay biyaha soo deynaysaan ka ilo tan adiga iibsay bila biyaha markaas lagu yiri war qasabadan aad arkaysid barakad baa ka horeysa barakada qasabad kale biyaha ku shubaysa qasabado iyo beeba baa dhulka dhexdeeda marsan biyaha waxa laga keenay ceelal riig lagu qodo 200 mitir baa biyaha loogu tagay hadar wax sahlan ma haba lagu yiri biyaha lagu keenay مثال كاسان dadku maanta la mid yihiin ninka qasabada biyuhu ka soo baxayaan biyuhu halkan inay ku jiraan buu mooday uu ku dhagay bal meesha biyuhu way ka soo dhax baxayaan dukaankaaga aqalkaada tijaaradaada beertaada ziraacadaada xoolahaaga xafiiskaaga waa asbaab ilaahay baa soo dhax marinaya arsaaqada laakiin rasaaqu waa kuma rasaaqu waa ilaahay رزاق وإلهي لذلك قفك مؤمنك أسبابتن والله إيمانا إنه يقين صدى الله دوني مايو أسبابتن وحا الله باهن يا إناد أسبابهان والتي مادد لكن أرزاق قد إلهي بينه بلان قاضي وأفري بل يلا ما تنهى بين علمه علوشه ويمركو كجري أفرتي الرمودة ملك قريب كمتهي بكتب رزقه وأجله أو شقي أو سعيد وكي حديث صحيح النبي شيغي أفر با علمها مركو بقولي لباتنها بين أوركو وكجرو أفرتن كهرب النبي يقول وان نطفد وبيير أفرتن كدنبنا وحا النبي يقول وحنجري روديغا أفرتن كصدحاده دنبنا ووصلدي روهيلبا بقولي لباتن كها بين علوشو علمه مركو كجرو أيا ملك الروح الله سو ديباي وافوفا دنا ملكاسي أفر شيء بو قريا النبي يقول وحا يداد إلههم ما أدون كان علمها علوشا قال ملبا مددق habeenkaas la qori midka uu noqonayo maqani ba mise waa faqiir arsaaqadiisa habeenkaas la qori ma ahlan naar ba mise waa ahl jannana habeenkaas la qori buu nabigu yiri malaba mise waa dhidi ajashiisi ba la qoray arsaaqadiisi ba la qoray shaqi iyo saciid ahl janna ahl naar midku yahay habeenkaas la qori halka qabrigiisu noqonayna habeenka bal calaamadeyn taariikhdu dhimanayo marka waxaan adduunka dul yaalo waa asbaab daawadaad cunaysid waa sabab lama inkirayo dukaankaad ka shaqaynaysid furatay waa sabab lama inkirayo
beer haddaad falatay waa sabab laakiin waa inaad ogaataa almusabbib waa ilaahay jalla wacala marka yaqiin baa loo baahan yahay dadku inay ku noolaadaan yaqiin naciish calaa yaqiinin bay culimmadu leeyihiin marka kasbiga xalaasha hadduunan ku dhicin dariiqadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam dambi baa ka dhalanaya isagana waxaa ka mid uu nebigu sheegay xadiis saxiixa waa kii nebigu lahaa saddex ilaahay qiyaamaha la hadli maayo dambina ka qaadi maayo il naxariislana ku dayi maayo cadaab kulul oo daranna way leeyihiin buu nebigu yidhi saxaabadu markay sidaa u maqleen hadalkaas saddex jeer buu nebigu ku celiyay saddex ilaahay qiyaamaha dembigooga dhaafi maayo il naxariisla ku eegi maayo walaa yanduru ilayhim eegi maayo xaggooda weeyaan laana cidda ilaahay daymooday baa la yidhi ilaahay waa u naxariistay ka dhigan tahay lana hadli maayo ilaahay jalla wacala cadaab kululoo daranna way leeyihiin saddex jeer markuu intaa nebigu ku celiyey ayuu yidhi abaadar baa yidhi khaabuu wa khasiruu man hum yaa rasuul allah kuwaasi way khasaareen wayna hoogeen ayay yihiin nebi allow noo sheeg markaa buu nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi almusbilu waa ninka maradiisa qur-aanta dhaafiya buu nebigu yidhi kibir iyo khuyalaa buu u dhaafiya xarago iyo isla weyni ama surwaal ha qad noqoto ama qamiis ha noqoto ama macawis ha noqoto ama jubbad ha noqoto qofka maradiisa qur-aanta dhaafiya waa ahla naar walciyaadu billaah walmannaan buu nebigu yidhi ka dadka u gallad sheegte ee dadka ku yidhahda anigaa wax kaa dhigay anigaa halkaa ku gaadhsiiyey anigaa maaragtaanay bani aadan kaa dhigay anu haddaan jirin adigu ma jirteen dadkana anaa kugu daray abaalkayga maad ilowday mannaan gallad sheegte mu'minku ma gallad sheegto mu'minka waxaa lagu yaqaanaa laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura marka uu wax la baxayo markuu ummad wax baraayo markuu khayr ummad u samaynayo markuu ixsaan samaynayo waxa uu leeyahay anu ilaahay maayna adiga waxba kaama barababa ilaahay dartii baan wax kugu qaban laana ilaahay baan wax ka sugayaa iyo walmunfiqu silcatahu bilxalaf alkaadibi baa nebigu yidhi ninka badeecadiisa ku iibiya dhaar beena badeecaduu iibinayay buu ku iibinayaa dhaar beena maxaa dhaarta kugu kalifay si qofkan jeebkiisa lacagta ku jirta uu ula baxa buu leeyahay anigu $5 baan ku iibsaday $1 baan dul dhigtay intuu weliba u dhaarto maxaa been kugu kalifay aba waxaagiya tijaaradu waa xalaal maxaad been ugu tijaaradaadii aad been ugu badili dhaar beena maxaad ugu iibin waa inaad runta u sheegtaa qofka intaa baan siinayaa intaa wixii ka hooseeyana ma dhimi karo marka taajirka waa inuu ahaado taajiru saduuq alamiin yuxsharu yowma alqiyaamati maca annabiyiina baa nebigu yidhi xadiis kale ninka taajirka ee tijaaradiisa labadaa sifa ku iibinaya labadee alsidqi waalamaana waa run wixiisu waa run been ma sheegayo wuxuu iibinaya run buu ku iibinayaa waxuu qaadanaya run buu ku qaadanayaa ammaanana uu leeyaho dadka agtiisa ay ku isla ganacsanayaan hadday ammaano u dhiibtaan ammaanadii way ugu imanayaan labadaa sifa ninka taajirku wuxuu ku noqonayaa ma taqaanaa maalinka qiyaamaha wuxuu la soo baxayaa sidiiqiintuu la soo baxayaa sidiiqiin nebiyaduu la soo bixi oo sidiiqiintuu la soo bixi oo saxaabada rasuulka radia allaahu canhum raggii jannada loogu bishaareeyey ragga ugu qiimo badnaayo ugu waaweynaa tujaar bay haayeen cusmaan binu cafaan taajir buu ahaa abi bakr sidiiq taajir buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf taajir buu ahaa sacd ibn abi waqaas taajir buu ahaa zubayr binu cawaam taajir buu ahaa tujaar bay haayeen 10ka jannada loo bishaareeyeyba waxay culimmadu yidhaahdeen nin ahla sufaa kuma jirin 10kuba wujahaa u naas bay haayeen ahla sufuhana waad garanaysaan waa raggii nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidka nebiga xagga dambe ka deganaayeen oo abaa hurayre ayaa ka mid ahaa raggaas waa la yaqaanaa raggaas laakiin 10ka jannada loo bishaareeyey rag wada sharaf la bay haayeen oo dadka ragga ugu cadcad ee waddanka iyo ummadda laga dhex yaqaano bay haayeen
abi bakr as-siddiq waa kamid radiyallahu anhu maalintuu islaamay lix dukaan buu magaalada Makka uu ku lahaa maalintuu nabiga la hijroonayayna awrku nabigu fuulayay maalinta Abu Bakar isaga keenay walaakin nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam wuxuu ku yiri bithamaniha ya Abu Bakar anu awrkaadii keentay lacagtiisa kharashkiisa aniga la baxay buu rasuulku ku yiri limaada bil mali wal nafs nabigu mali nafbu ku socdaa maalkiisu ku fidinaya diinta waqtigiisu diinta ilaahay ku fidinaya dadna nabi Muhammad waa ka Abu Bakar safarka la rafiiqay ila al-ghar safar al-hijra wa ma'ruf taariikhdiisu marna nabigu ka horeeya marna nabigu ka dambeeya marka Abu nabigu ku yiri Abu Bakar mar waad iga horeynaysaa mar waad iga dambeynaysaa maxay ku dhacday xagga hore markaan kaaga baqana waa ku hormaraayo waxaan idhaahdaa cadowga nabiga intuu waxyeelay adiga waxa lagu yeelo xagga dambe markaan kaaga cabsadana waan ka dambeeyaa buu ka yiri maalintii nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam godka la galiyayna Abu Bakr as-Siddiq taajir buu ahaa isagoo khalifa oo taladii ummadda oo dhan loo dhiibo gacanta laga saarayna wuxuu ahaa ninkii dharkiisa intuu qaada bagaashka tagay bacadlaha tagay dharkiisa ku iibinayay oo Umar ibn Khattab gacanta intuu soo qabtay uu ku yiri xageed u socotaa de waan shaqo tagaya reerkii ubadkan u shaqo tagay buu ka yiri ganacsi dambe haleeli masjid buu ka yiri taladii ummadda lagu dhibay adiga oo reerkayga masaariiftoodiina annaka bixinayno u shuureen in aad halka fadhi baa lagu yiri taladii ummadda loo dhiibay maskaxdiisa kuma soo dhicin mas'uuliyadda lagu dhiibay baad reerkaaga iyo ubadkaaga ku nooleyn doontaa maskaxdiisa kuma soo dhicin waxa maskaxdiisa ku jirta reerkaagana adaa ka mas'uula tanaad ummadda u qabatayna waa mas'uuliyad ummadda u khadmeynaysa halkeen kala joognaa waa kaas Usman ibn Affan kadalika qani buha Usman qani غزوة تبوك markuu nabigu baxayay wuxuu ahaa ninkii 700 oo awr iyo 500 oo faras nabiga hortiisa keenay buu ahaa ayiri inta ciidanka ay ku dar 700 oo awr iyo 500 oo faras inta bixin kana buu ku jira wadankeena asxaabu rasuul marka laga warramay waxaan u asanaa dad fuqara iyo dhulka yaalayna ahaayeen 10,000 oo nin sahaydoodii buu maalinta nabiga u keenay 10,000 ana ka qaaday igu daa gaadiidkii raacayeen uu keenay baadkay cunayeen sahay ka dhiganayeen uu keenay marka uu nabigu gacmaha cirka u taagu yiri ya rab Usman ibn Affan raalli baan ka hay adiguna raalli ka noqo buu yiri ni'mal malu salih lirajuli salih nagamaanta xoolaheena baanankay noo yaalaan aqalada inoo yaalaan ciiday noogu jiraan oo qalaan ku dhisana iyagoo xoolahooga iyo dhaqaalahooga diinta Ilaahay bay ku bixinayeen 700 oo faras oo awr iyo 500 oo faras iyo zaadkay 10,000 oo nin ay cunayeen sahay ka dhiganayeen ilaa Tabuuka ay tagayaan ka soo noqonayaana aniga hal igu duceeyo buu yiri فقراء ما هي نقعان قاسة هدنا هبينك لابا ركعدود او كليو قرآن كدما كو دميني هدنا نكاس مقام إبراهيم بو هبين لبدا لغو الله قال عثمان بعد صلاة العشاء مقام كان النبي إبراهيم وهل كرات كوكويا لو ويان إمكا واكوا كسمي قبض دير الذهب كان دلاشا يشهد لغا داوضو halka bariga banaanka iska ahaydo labada lugood baa la dul dhigi jiro marka maqaam Ibrahim halka Abu Usman habeenkii nin saxaabada kamid uu ku yiri iga yar baxaniguna ku cibaadeyste markaasuu uga baxay markuu arkay amirku dul jooga buu uga dhaqaaqay markaasuu labadiisu lugood halka galiyay laba rakac ku tukaday rakacadii koobaad quraanku ku dhameeyay rakacadii labaadna qul wallahu ku tukaday aadaankii fajrkiina wallahu adimay adduunyadana tujaar bay haayeen oo xoolaha inta leeg bay diinta ku bixinayeen aakhirada markay noqoto iyo cibaadada markay noqotana quraanka dhan rakacad buu ku khatimayay nimankii
buqaada ahaa markii Cusmaan ay rabeen inay dilaan fadaa'ilka uu sheegtay bay kamid ahayd arrinkaas warmaanaad dilaysaan buu ku yiri nimankii buqaada ahaa Masar iyo Basra iyo iska soo urursaday ee doonaya Cusmaan inay qudha kaga jaraan runtii wayna dileen markii dambe wuxuu warmaanaad dilaysaan miyaanadi ogeyn buu laba gabdhood oo nabi uu dhalay in aniga la ii dhisay oo tani markay iga dhimatay tii labaad uu nabigu ii dhisay tii labaad markay iga dhimatayna uu nabigu yiri ina saddexaad oo ina Muhammad haday noolaan lahayd Cusmaanow waan ku guurin lahaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam awwaliin iyo aakhiriin waa ninka kaliya laba gabdhood oo nabi uu dhalay ay xaasul noqdeen baa la yiri taariikhda nin kale oo galay ma jiro caalamka ugu kaligii buu taariikhda ku jira Cusmaan ninkaas aan ahay wadi aniga maxay iga dilaysaan war miyaan adi garanayn buu waxaan ahay mujahhiz jaysh al-usra ciidankii cuslaa ee nabi maxamed uu hor socday 30 kun ahaa ninkii sahaydooda diyaariyay ciidanka xambaaray ee gaadiidkii raacayeen iyo sahayday ku baxayeen keenay baan imaad garanayn buu ku yiri war aniga miyaan adi garanayn buu ninkii bi'r mauna maalintii ansaar muhaajiriintu nabiga u yimaadeen ay yiraahdeen magaalada Madiina biyaheega waa la iibiyaa anaguna lacagan biyaha ku gadana ma haysano waxaan ahay ninkii nabi maxamed ku yiri ceelka bi'ru Roma aniga keenaye nabi allow ceel jannada ku yaala hal igu ballan qaado ee ceelka ninkii lahaa intuu u tagay 30 kun diinaar intuu siiyay furaha ka soo qaaday nabiga u keenay ku yiri yaa rasuulullah ceelkaasi waa waqaf muslimiinta abba hadhaasada biyiisa waa kuwaas oo nabi maxamed uu yiri Cusmaan ilaahay wuxuu ku diyaariyay ceel il jannada ku taala ilaahay ku ballan qaaday nabigu ku yiri yaa Cusmaan baa nabigu ku yiri maalinka amal dambe oo wanaagsan oo saalix ah hadaanad qabanoo inta aad ku joojisid adigu inta ba janno ku gashay buu khalaas ninkaas aan ahay buu war waxaan ahay ninkii nabi maxamed uu yiri miyaanan ka xishoonayn ninka ay malaa'iktu ka xishooto wayana Cusmaan nabiga alayhi salaatu wasalaam oo jilibkiisaasi uu muuqdo ayaa Abu Bakar u soo galay oo iska fadhiyay nabigu sidiisii kama dhaqaaqin fadhigii hadana Umar baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyay hadana Ali baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyay Cusmaan ibn Affan markuu soo galay nabigu maradii buu hagaajistay markaas nabiga lagu yiri Abu Bakar iyo Umar labaduba sodog bay adiga ku yihiin Alina inantaadu qaba saddexdaaba Cusmaan ka soo horeyso maradii mad saaran jilibkee maxaad Cusmaan uga xishootaa lagu yiri miyaanan ka xishoonayn buu nabigu yiri ninka malaa'ikta ilaahay baa ka xishootay waxaan ogahay buu nabigu yiri haddaan sidii u fadhin lahaa xisho daraadad Cusmaan ma soo galeen buu halka uu joogi lahaa buu yiri war ninka dilaysan waa ninkaas yiri ninkaas aan ahay maxaad iga dilaysan aniga Ali baa u yimiday oo inamadiisi ay garab socdaan oo hubka soo qaateen ya Abu Hurayra ya Amir al-Mu'minin nimanka buqaada kugu soo duulay waa 500 oo nin magaalada Madiinana 40 kun oo nin baa joogtay han layno han qabano qudhahan ka jarneen ugu fasax buu ku yiri wuxuu yiri may dhiig islaam magaalada Madiina ku daadan maaye haday aniga ay dilayaan hay dilaan haday aniga ay dilaan buu yiri aniga nabiga ay sheego igu yiri qamiiska ilaahay ku galiyay bay damci doonaan inay ka saaraan hadaad Cusmaan oo qamiiska aad iska saartid buu nabigu yiri aniga ay arki meesid ugu qiyaamaha ila kulmi meesid beertii Abu Bakar uu nabiga albaabkeega u garaacay ee Abu Musa al-Ash'ari waxa bawaabka nabiga uu ahaa u garaacay waa kuma Abu Bakar waa ku soo ijaazo qaadiyo joog nabigu uu sheegay Cusmaan Abu Bakar baa albaabka taagan soo gal ka dhabuuri albaabka oo u fasax jannana u bishaare hadana Umar baa garaacay Umarna u fasax inuu soo galo jannana u bishaare hadana Cusmaan baa albaabka taagan Cusmaanna soo gal ka dhaw idan jannana u bishaare balaayo asiibi doontana u sheeg buu rasuulku yiri markaa buu nabigu bishaaradii markii loo sheegay balaayo la socota wuxuu yiri Allahul musta'an markaa tiibu Cusmaan xasuusiye Ali wuxuu ku yiri balaayada aniga inay qabsani doonto nabiga ii sheegay aniguna waan iska sabrayaaye aniga keligay hal ay dilo han dhinto anigu haddaan dhinto nin kale oo muslimiinta kamid oo inaga inaga mid ah baa talada u dhiibanaysaane aniga dartay ha u dagaalamin iska daayay buu islaamnimadu baaqi ha noqotay
la odhan maayo niman buqaada bay dileen oo madiina ku dileen la odhan maayo waxa lagu sheekaynay haddaan isku kii fasaxa imika muslimiintii daarul khilaafa buu dagaal ka dhaco dawladda islaamku way baaba'daa la odhan buu yidhi marka anuhan iska dhinto hay dilaan aniga laakiin dawladdeena islaamku hay noo jirto midnimadeenu ha jirto bal fahmiga saxaabadu ay qabeen eega dhiigoogay ummadda ku badbaadinayeen ummadnimadu inay jirto cusmaan dhiiggiisii buu u huray waayo muxuu dhiigga ugu huri waayey min maalintuu islaamay ilaa la dili doono dhaqaalihiisii oo dhan baa diinta islaamka ku baxaye islaamnimada markay wax kaa galaan baad u lex jecloon moogta asxaabu rasuulillaahi sal allahu alay wasalam min kooga faqiirka ilaa kooga qaniga maalqabeenka diintan islaamka iyagu waxbay gashadeen diintu waxbay gashadeen faqataluuhu deedna cusmaan sidaasay ku dileen raggay waliba uu soomanaa maalintii la dilaayay isagoo sooman bay dileen markaasaa raggii u yimidee ugu dambaysay u yimide wuxuu ku yidhi xaq haddaan nigu leehood anigu amiirkiinii aan ahay aqaladiina fadhiisa seeftan iska dhiga buu yidhi ani hay difaacina waayo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar iyo cumar baan ku manaamay waxay igu yidhaahdeen cusmaanoo maanta annagaad nala afuri doontaa marka anigu waan socdaa buu yidhi ma joogay adduunkan meel fiicanna waan marayaa marka aniga dartay ha u dagaalamina buu yidhi aniga magacayga dhiig islaam ha ku daadanina halkiina jooga buu yidhi aqaladiina fadhiista markaad maqashaan cusmaan waa la dilayna inagu shuuraysto amiir muuminiinta u doorta buu yidhi taladu ninkay naga guya kuwan u noqon mayse dhiiggiisii buu ku badbaadinayaa dadnimada iyo dowladnimada islaamku inay jirto innagana zamankeenna wuxuu le diinta maxaa iga galay buu ku odhan diinta maxaa iga galay dee diinta warun waxba kaama gelin caqli kaama gelin oo dhaqaale kaama gelin oo wakti kaama gelin oo dhiig kaama gelin oo dheecaan kaama gelin laakiin qabiilka haddii la caayo waa damqan reerkaad ka dhalatay haddii la caayo oo la taabto dhiig kar baad yeelo dhiig wadnaha ku kici waayo reetolka maxaad ugu damqanaysaa qaaraankaad ku bixisaa iyaka islaamnimadase waxba kaama gelin iyaka islaamnimada waxba ka galay min maalinkuu islaamay cusmaan ilaa maalinkii la dili doono dhaqaalihiisoo dhan diintu ku bixinaye meesha xooggiisii dhaqaalihiisii caqligiisii uu ku baxay inuu naftiisa ku badbaadiyena diyaar buu u yahay ani hay dilaan laakiin midnimadeennu ha jirto ani hay dilaan laakiin magaaladii madiinu dagaal ka dhacayaan la maqlin aniga hay lay dilo han ka taga adduunka laakiin islaamku is haysta han ka tago laan agtooda diintaa qiimo lahayd yaka cabdiraxmaan bin cawf kadalika hani buu ahaa radia allahu canhu maalqabeen waa ninka cusmaan binu cafaan ka yaabiyey buu ahaa isaguna cusmaan buu ka yaabiyey cusmaan binu cafaan oo amiira ayuu cusmaan odhan jiray waxaan la yaabaa buu ihi tijaaradda cabdiraxmaan bin cawf saad ula yaabtaa lagu yidhi wuxuu ihi muslimiinta madiine ku nool oo dhan baad mooddaa inay la leeyihiin markay maqlaan cabdiraxmaan tijaaradiisii way kobocdo wuu macaashay way la farxaan hadday maqlaan cabdiraxmaan bin cawf tijaaradiisii khasaara ku yimiday oo hoosu dhacbaa ku yimiday hadday maqlaanna way ka naxaan buu yidhi waxayna uga naxayaan baan nii sheegay buu yidhi dhegaysta cusmaan baa leh magaalada madiine dadka degan cabdiraxmaan saddex buu u qaybsadaa saddex qaybood qayb uu daymiyaa lacagta wuxuu dhahdaa macaashkana la hadh reesamaalkana iska soo celiya qaybta labaadna wuxuu yidhi aqaladooduu yaqaanaayo masaariif buu siiyaa biilkuu siiyaa biil oo u tirsan yihiin inta guri ee saboolka qaybta saddexaadna wuxuu yidhi daynka lagu yeesho ee iska dhiibi kari waayaan ayay isaga ula soo noqdaan ay yidhahdaan cabdiraxmaan baa noo nool ibn cawf baa noo jooga annaka cabdiraxmaan bin cawf intay u yimaadaan buu ayaa dayn kugu leh hebel hebel waa kana iska sii anaa kuu noole
ninka xoolihiisii magaalada madiina muslimiinta ku nool oo dhan sidaa ula simay mar aliya markay maqlaan tijaaradii cabdiraxmaan baa kobocday way la farxaan limaada laanna way la leeyihiin hadday maqlaan cabdiraxmaan tijaaradiisii hoos u dhac iyo ganacsigiisii baa hoos u dhacayna way ka naxaan limaada liannahu way la leeyihiin iminka tujaarteenu macaynkaaba masaasa waa musteene ya mid miskiin oo dhuuban ayaa arkay nin taajir oo iska yar calool buuran markaasuu yidhi waxa caloosha ka buuxa annaka munasiyaa buu yidhi annagii baa ka gaajoonayne buu yidhi waxay asxaabtu ay hayaan waxay u fahmeen inay muslimiinta u hayaan innakuna waxaan u fahmnay waxaan haysta buu ku leeyahay nin walba anaa iska leh aragtada intay isku jirtaa markaa waxaan haysto anaa iska leh waxaad adu haysatidna anay igu fiican yihiin iyaku waxay lahaayeen waxaad haysato adaa iskale allah kuu barakeeyo waxaan anigu aan hayana walaal adaan kuu hayaa inaan xaqaaga ku ilaaliyo naftayda uma nooli bay lahaayeen iyaku ummaddaan u noolahay haddaan dhimanayo ummaddaan u dhimanayaa innagana maanta waxaan maraynaa inaan idhaahno hee waar anu nafteyda maan cid kale ma aqaano dadka kale maxaa iga galay buu ku odhan ku saliya rasuul hadduu yidhaahdo qofku waxaan haysta anaa iska leh halkaa waxa ka dhalata ma taqaanaa xasad baa marka dambe qofka ku dhasha xasad maxuu ku imanayaa markuu yidhahdo waxaan haysta anaa iska leh wixii fiican oo dhan anay igu fiican yihin marka dambe iman doonta marka hore wuxuu odhanaya waxaan haysto anaa iska leh cidna ilama leh marka dambe waxaa ku dhalan doonta inuu yidhaahdo kan wuxuu haysta hee siduu u haysta anay waxaan igu fiican yihiin xasad xasadkuna waa sifadii qaabiil uu walaalkii haabiil uu ku dilay watlu calayhim naba bnay aadama id qaraba qurbaanan fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar qaala inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin walaalay haayeen aadam baa dhalay labadoodaba laakiin berigaan maadaama bini aadamku aadam uu tarmaayey xawaa marka caloosheeda ilmo uu galaba labay dhalaysaa la laba mataanay dhalaysa wiil iyo gabadhan isla dhashay labada ku xigto iyakuna wiil iyo gabadha ayay isweydaan layskugu guurinayay baa la yidhi bini aadamkaa tarmaya markaas marka qaabiil waxaa la dhalatay gabadh qurux badnayd haabiilna waxaa la dhalatay gabadh foolxumayd baa la yidhi markay afartoodii barbaareen ee weynaadeen ee kobceen ayuu aadam ku yidhi waa hagaaga haabiilow mataanta qaabiil guurso waa sidii curfiga ugu ahaa shareecaddoodu marka ay ahayd qaabiilow adiguna mataanta haabiil guurso marka qaabiil baa yidhi may aniga ta ila dhalataa qurux badanoo ta isaga la dhalata way fool xun tahay marka taydan guursan buu yidhi yani wixii fiicanba anay igu fiican yihiin weeyaan marka aadam baa ku yidhi may sharcigeenna inanka la nooma ogolo may halka sheekada oo maraysa mufasiriinta qaarkood ay qoreen aadam calayhi salaam wuxuu tegey makuu tegey deedna qaabiil iyo haabiil baa isku hadhay labadoodii baa markaa waxay isku bandhigeenay yidhaahdeen haddaba waayahee sadaqad ha la baxno keenna sadaqadda laga aqbalo ha guursado gabadha quruxda badan leh ilaa qaabiil tii haabiil la dhalatay fool xumayd uu iska diiday inuu guursado wuxuu leeyahay anu tan mataanta ila dhalatay quruxda badan leh haabiil u dhisi maayo anaa guursan buu leeyahay labadoodii markaa waxaa loo bandhigoo la yidhi sadaqad la baxa ninna wuxuu ahaa beero qodaal beeruhuu falan jiray oo qaabiil wuxuu ahaa nin fallaaxo bidirka iyo zaraca dhulka ayuu beeran jiray haabiilna wuxuu ahaa baa la yidhi xoolo dhaqato kana beertiisii wixii ka soo ga'ay buu halkaa ku ururiyey kana xoolihiisii neefkii ugu qurux badnaayee shishlaa ayuu xaggaa soo dhigay baa la yidhi marka sadaqadaas in la aqbalana waxaa lagu garanayey samada waxaa ka imanaysa naartaasi markaa sadaqada la aqbala bay ku degayso way gubaysa
way baabi'inaysay marka haabiil sadaqadii uu la baxay ayay ku soo degtay baabiisay bal waa neefkii tii qaabiil meesha uu ku ururiyay ee shaciirkii iyo wixii dal cunay zarca aha naartii waa ku soo dhici weyday marka qaabiil ba si xanaaqo yiri haabiil oo si aad lagaaga aqbala oo in laga aqbali waaya marka haabiil ba ku yiri walaalkii da ilaahay dadka Allah ka cabsiga loo sadaqada ka aqbala buu yiri deewaan ku dili da aday ku taallaa buu laakiin anigu haddaad adigu gacanta ii soo fidisid anu ka gacantayda ku qaaday ma yihibu ka yiri deewaa ka dilay marka quraanka ilaahay ku sheegay faqatalahu fa asbaha min an-nadimin waxa bani aadan xaq darro lagu dilo oo dhan ilaa qiyaamaha in aadan ka hore dhiiga daadiyo dhiigi ugu horeey xaq darro ninka ku daadiyo qaabil buha dambi buu isaguna ku leeyahay waxa bani aadan xaq darro dhiig lagu dilay oo dhan dambigana muxuu ka dhashay xasad xasadkuna ma ogolo shariicada islaam xasadku waa maxay hadii la macnayo waxay ka dhigan tahay ilaahu nicmadan hebel aad siisay uma qalmee maxaad u siisay ما إلهي بعد مركا كأركت في عنته دنبق حسد كالقولية حسد كمركا دم وحو جايي إنه قابيل ولالكي وكل قرون لذلك ذاتك بايع مشتركة صفات حسد كوين كفو قدام كيشالي سوق الصوق قليب الله جاي بينه كل دافع دقة هاي سورة صدوق يدافع عنك إلهي بأقرأ ده سجى يا أقرأ إلهي لأن الرزق هو منقسم والله قيبي الدنيا ده اللي قمت ترتمي دين ده اللي قمت ترتمى خصلتان من كانت فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكون فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا لما خصلتون قفك نولشي سأي كمت هاي كجرتو إلهي الليسك الشاكرين الصابرين تأيو قدرا من نظر إلى دينه من هو فوقه فاقتدى به ومن نظر إلى دنياه إلى من هو أدنى منه نيكا مركي دين نقطة ككسر يا إيغا يكون ضيدا الدنيا مركي نقطنا إيغا ككهوسيا النعمة إلهي سيغوسي هوسو إيغا كو شكريا لابد خسلا نيكا لبا ليري إلهي جل وعلا وحو قدرا شاكرين تي صابرين بركا إن الدنيا لسكا دايدو oo walaalka adduunyo lagu la tartamo oo adduunyada lagu xasdo lama ogolo waxa la ogol yahay in qofka diinta lagu la tartamo ka diin fiican bal la eega deedna waa lagu daydaa yaa leeyahay waa lagu daydaa salaada shada waqti waad u tukanaysaa waad baxaysaa laakiin ninka sunnaha ku daraya eego bisha ramadaan baad adigu soomaysaa sunno kale ma soontid ninka shawaalka ku daraya eego ku dayo أعمال بالله باهين لغو ترتمه أشياء لغو ترتمه ما مدول بارزاقات إلهين تو قريب وهلايا إنك لو زيادة مهلايا كسبك أرزاقات اسكو ما حدنو ضد با كاش شقة بدن هذيك لكن كا دخل ير نبا هذيك كاش شقة ير لكن كا دخل بدن كوليغا الصبح ذا اللحظة الصبح نما شقة بلابو أيو لحظة مغرب كسور دعاء isagoo naftiisu ay nafba ku jirin ba waxa uu qaadanayaa wax yar oo leeyahay $15 ama $10 laakiin injineeradu ka warrama maxay shaqeeyaan injineerku ma soo shaqeyn saacad laba saacadood waliba xafiis qabow ku shaqeyn xafiis qabow oo biyihii u yaaleen oo halkan shaahi u yaalo oo ku sheekaynayo laba saddex saac u shaqeyn waxa laga yaabaa $100,000 inuu qaato maaha qalinka wuxuu ku helay arsaaqada may waa u qornayd imisa ka aqoon badan oo xaafadaha fadhido walwalan dadka inta shaqeynaysa kala haysa iyo inta aqalada fadhida cunaysa ma badan ya bal dumarku may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo inaga qurux badan yihiin ubadku may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo inaga qurux badan yihiin waayeeladu may shaqeeyaan may hadana way cunaan way cabaan dadka walwalan may shaqeeyaan may hadana way cunaan way cabaan
dadka jeelasha ku xidhan may shaqeeyaan may haddana way cunaan way cabbaan u fiirso dadka inta shaqaynaysa 10% maaha 90 kalena way cuntaa marka walaalkaaga muslimka haddii ilaahay uu ka dhigay mid adiga kaaga horeeya xagga adduunyada war adduunyada qofka lagula tartamo waxa lagula tartamo qofka aakhirada lagula tartamo في أحد الغزوات نبيين وبحجر صلى الله عليه وسلم غزوة كمدة أي النبي الصحابة كل رجال يجري سفر كوان نقول دريا هاي سهيدنا ويكوبان تهي نم ولا بالمان توح الله بحكرت الله بح بس عمر بن الخطاب مالين تامركم مغلي وحي كسر دعدي بودي مالين أنا نقول عن أبو بكر كجيب رونح markaasaan is iri wallahi in badan baad Abu Bakar isku dayday inaad khayrka uga badiside ka badi kari weyde maanta aad fursad heshay waad ka badinaysaa maanta oo fursadda Umar uu haysto waa maxay Abu Bakarna waa faqiir waa markii Madiina loo soo hijroodo dhaqaalaba ma haysta Abu Bakar Umarna waa nin maal qabeen oo ganacsi buu leeyahay markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa nin walba wuxuu bixiyay weydiinaya walibana maanta aad maxaad bixisay ya rasuulullah inta soo neef baan keenay anigu ma sha Allah ka qaada waradna maxaad keentay ana inta soo ariyaan keenay ka qaada waradigu maxaad keentay inta soo nin baan aniguna saydooda keenaya ka qaada Umar oo socda markaa yimid ragii ka horeeyay Umar wuxuu nabigu weydiinayay waxay la baxeen buu weydiiyay لكن عمر بن الخطاب نبي سؤال عجيب ويدي وحو كيري يا عمر ريركاغا maxaad uga timid bali sheeg buu yiri ماذا ابقيت لاهلك صحابته intii kale dhan waxa la weydiiyay waxay keeneen in la baxayaan laakiin Umar wuxuu nabigu weydiiyay xaad maanta Umar oo adigu nasid maxaad reerkaaga uga timid bali sheeg markaasuu yiri intan aan wado إلا أقوم بانوغا يمدي بودي مثال هان كسو قادن بقول كون هايستا أو كنتم كون كاني كنتم كون ريركي بوغا يمدي زمن كوداس مصاريف الريرها waxay ku bixiyaan baa la yiri way isma sheegi jireen laana Umar haduu sheegi lahaa كنتم كون reeraha uga yimiday نقصان با عمر هلكا كغا موقن لهين noloshiisa waayo waxa la ogaan lahaa ma maasha asxaabu rasuulillahina ay dhagax caloosha ugu xiranayaan ee ahlu sufiina xabad timir ay ku cuntaynayaan ayuu Umar xoolo inta la reerkiisa ku dhaxaysta halka nuqsaan ba ka soo gaar lahaa Umar diintiisa lidaalika Umar ma sheegin wuxuu yiri intanaan wado in lamida baan uga imiday buu reerkaygi midaal ahaan 100 kun bay ahayd كنت كنا أو كأنه كنت أنا الله علي أبو بكرنا وحى وكان يا ما بجرتها وفقير عمر يسقو وحى فيلا يا إلا إذا هذا محات كنتي وهذا كنت كن بكاني أبو بكر وهذا كنا محات كنتي وحما هيست النبي الله وما أنت ده عمر إذا أبو بكر هذا كبدية ما أنت وهذا فهمتين ما ملاين لكن سؤال النبي هو حيقول بعد السدن ماذا أبقيت لأهلك يا عمر رأها محات وقتي مدي انت نان وضو ان لا اغبان uga yimid biyuri inta marka lama weydiin sheeg lama oran inta mana sheegi karo inta reerka la weydiin intiina ma sheegin oo xishoodo ya rasuul inta naan keenay in la eegban uga yimid Abu Bakar oo socda yimid oo yiri ya rasuul Abu Bakar ana reerkaaga maxaad uga timid sheeg wuxuu yiri ilaahay rasuulka saan uga yimid biyuri bila masaarif bila waxba marka uu nabigu eega Umar oo qoslo wuxuu ku yiri ya Umar labadiina sadaqa inta labadiina hadal inta u dhaxaysa ayaa darajadiina jannadana u dhaxaysa rasuulku ku yiri waa maalinku Umar yiri hadde toole maanta intii ka dambaysa Abu Bakar dambo la tartamaya way hadhay waadi fahamtay maanu malay تنافس وصارعوا وسابقوا فليتنافس المتنافسون بإلهي صارعوا
adduunyada marka la nagala hadlayo ilaahay wuxuu yiri famshu fi manaakibiha u socda adduunyada u socda socodku waa sadan socod waa taqaanaan dhikriga ilaahayna fas'au ila dhikrillah sa'yigu baa la yiri waa socodku ka sareeyo oo u degdega وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تنافسكنا waa maxay waa tartan laba qof oo sharad halka loo dhigay oo tartamaysa say u kala badiyaan jannada marka laga hadlayo laba nin oo sharad loo dhigay siday u baratamaan baa ilaahay yiri u soo baratamaan baa ilaahay yiri laakiin ilaahay xaqiisa marka la yirina waxa la yiri fafirru ila allah firarku waa maxay nin liba xiriinay ka warama laba nin oo sharatamaysa oo sharad halka loo dhigo baratamaysa iyo nin liba xiriinay maska orad ba orkay orad badan inagu dadkeena zamankan baa la yiri fafirru ila dunya adduunyadii baa loo ordaya maanta diin markay noqotona famshu waa u soconaa waantu kadaay maxaa laga rabaa buu kooran wax salaada ka badan baa jira adduunyada u socaa laga yiri ilaahay xaqiisana waxa laga yiri fafirru firar ka firarika min al-asad sida libaax naftaada aad uga badbaadin lahayd naarta jahannama uga badbaadi baa lagu leeyahay adduunyada uga badbaadi فأدوية أكلا بدين ماينو آخرة أكلا بدينينا عمل كونكسب أكلا بدينينا إلهي الدواشيس أكلا بدينينا جنة أكلا بدينينا فاستبقوا الخيرات خير كوسو كلا بديه با إلهي ليه خير كوسو كلا بديه marka adduunyada waa inaad tiraahdaa war inta ilaahay qadaray baan anigu aan haystaa ma dhaafin karo walaalkayna intan uu haysto ilaahay baa u qadaray waan u haneeyay لا حسد إلا في اثنتين بالنبي يقولي حسد كدينتين وأقشها ولا بشيء كليا لا بشيء باقفك أورن كرا الله ما أنيقنا إلى حسد أيقدقو لا بأم بالله كان تابو النبي يقولي والله بدي كما شد الله بأم بيو بنان تحي قف إلى هاي دقالة أوسيي أو دقاله سمال في عقب حين مركز أركته يقف إلى هاي قرآن وبري أو ساعدها بينك كما القرآن كإسلتها وآخرني هذا أركته لا بد أم بالله أورن كرا الله إلهه ما أنا سدا يقدك تنسدوا دوس وكلا نقول خير كوكو بدل هاي لبدا بقف ولا ليكو كما كرا مال قبان مال في عقب حين حولهيس مسجد بكل سيا مدارس كل سيا مكاتب كفريا ايتام تو وحسينيا مساكين تكون نفقينيا علماء كو اكراميا خلقي إلهي بو أديقيا كاوالا تمني كرا تمني بالله ورنا ياي إله نعمة محاد أسيسة كسوقات ماها ما سيدي سيلاو يقدك تدويان هدادي أنا كان حول السين لحيد سيدي سوكلا نقول لها أو خير كاكو بحين لها ويان إيا نين قاري وقرآن إلهي أو بري أو ساعدها بينك كمدا انتوكا إلهي بريايا marka khayrkeena nu tartana diyaar ma unahay insha Allah dhahada وفي ذلك فليتنافس عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه ayaa sankaraadkii markuu qabtay ay ardaydiisii iyo culimadii ay dushiisa ku soo urureen ayuu dhaha kala qaado sida uu eegay limithli hada falyamal al'amilun buu yiri limithli hada maanta oo kale xaaladda anigu aan ku jiro oo kale nin walba way mari doontaaye warninkii u soo amal falayow halka ha u soo shaqaystay buu yiri halka marxaladda maanta anigu aan marayo maalin baad adiguna mari doontaaye arintaad noo shahay khayrka u kala badiya khayrka u baratama khayrka camira khayrka beera khayrka ka shaqee khayrka ilaahay nasiyana waa diinta islaamka diin qiimo ku yeelaysa adiga jibriil alayhi salaam quraanka loo soo dhiibay sayyidul malaa'ika ilaahay ka dhigay nabi maxamed quraanka lagu dajiyay sayyidul awwalin wal aakhirin ba ilaahay ka dhigay ummadda nabi maxamed baa quraanka lagu soo dajiyay dusheeda ummadda ugu khayr badan baa laga dhigay makka quraanka lagu soo dajiyay buqcadaha adduunyada ugu khayr badan baa laga dhigay
bil rabadaan buu quraanku soo degay bisha bilaha ugu khayr badan baa laga dhigay habeen leelatul qadr quraanka la soo naqliyay habeenkaas wuxuu noqday kun habeen kun bilood habeenka khayr badan buu noqday habeenkaas diintaas ilaahayna siiyay sharafta ku yeelaysa ee khalqigii sharafta u wada yeeshay jibriil bay diintu sharaf u yeeshay oo lagu ammaano la yiri nazala bihi ar-ruh wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruh al-amin jibriil alayhi salam buu quraanku amin ku sheegay amin ruh al-amin wa jibriil muxuu amin ku noqday waa waxiga uu ka soo qaadayay baytul izz ee nabigeena maxamed oo arlada ugu keenayay sayyidul malaa'ika ku noqday nabigeena quraanka lagu soo dajiyay isaga sayyidul awwalin wal aakhirin buu noqday makku quraanku ku soo degay buqcadaha adduunyada ugu khayr badan bay noqotay makka salaada makka lagu tukado waa 100,000 oo salaadood 100,000 oo salaadood waa meeqa sano ma taqaana waa 55 sanadood iyo 6 bilood iyo 22 habeen hal salaad oo makka lagu tukado yaa u dhiganta 55 sanadood iyo 6 bilood iyo 22 habeen 5 salaadood ninka ku tukada ka warrama waa 500 sanadood iyo ziyaado 10 salaadood ninka ku tukada ka warrama 10 salaadood 20 salaadood 5 salaadood waa 250 10kii waa 500 20kii waa 1000 sano iyo dheeraad qof jiray weeyaan makka waxay qadarka iyo qiimaha ku yeelatay waa buqcadii nabi maxamed uu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam waa buqcadii kacbadu ku taalay waa buqcadii quraanka kariimkeenu ku soo degay ummadana ilaahay quraan buu siiyay waxay noqotay ummadaha ugu khayr badan bay noqotay habeenkii quraanku soo degayna waxa la yiri inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna anzalnahu fi laylatil qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr diintaas dhulkii qiimo u yeeshay maalmihii qiimo u yeeshay bishii qiimaha u yeeshay nabigeena maxamed qadarka u yeeshay jibriil makaanadiisa kor u qaaday haddaan diinta inaguna kor u qaadno dhaqaalaheena aqligeena cimrigeena aan ku bixino inteen leeg diintaas kor inoo qaadayna kan walaalayaal yaanan cimrigeena adduunyo ku wada bixin adduunyadu ali baa lagu yiri siflan ad-dunya ya amir al-mu'minin adduunyada bal noo sifee markaa buu noo tusaale ma asifuha maxana adduunyada inigu sheegaa buu yiri oo fikiray awwaluha ana awwalkeeguna waa tacab waa daal wa aakhiruha fana aakhirkeeguna waa dhamaad halaaluha xisaab halaalta kugu soo gashana waa laga xisaabi wa haraamuha iqaab teeda xaraan kugu soo gashana waa ciqaabo ku sugaysa ninka adduunyada hantiila ku noqdana uu fidnoobay buu yiri ninka ku dhex faqiiroobana uu murugooda buu yiri ninka hantiilaha buu raaxaysta warniga maalqabeenka ka warrama isaga ugu walwal badan oo ugu murug badan oo ugu hurdo yar oo ugu raaxo yar oo ugu naxdin badan dadka maalqabeenada intooda badan waxay ka cawdaan ma taqaanaa dhiikar iyo macaan maxaa keenaya ma taqaanaa waa qalbiga waa wadnaha temperature-ka qalbiga marna uu dhaadhaca marna uu kaca marka la yiraahdo waad macaashsana uu farxaa marka la yiraahdo markabkaaga uu dagayna uu dhaadhaca dadna markaas dhiigiisu marna 50 buu gaadhayaa mar 100 ku gaadhayaa mar 200 gram buu macaankiisu gaadhayaa waa ka cafariis dadka ugu caafimaad badan adduunka waa dadka fuqarada dadka ugu caafimaad badan corona waagi dhawada dadka ugu cabsi badnaayay hayeen labada qole hayeen laba qolada lacaglayda ee shawladooda gaaska ku jira gaas bay leeyihiin wogda iyo qolada madaxda kuraasada ku fadhida inay dhimaneen isku haysata labada qolo ugu cabsi badnayd maskiinka faqiirka qadadii doondoonaya ma corona ka baqi hormu ka baqi ciyaar buu arkay riwaayad la sameeyo leeyma kaanu fiirsada Djibouti waxa afka xidhan oo dhaw dadkii lacagta lahaa lacag leeydiya madaxdii waa laba qolo isku haysata inay dhimaneynba faqiirka miya waxa dadka maalqabeenada madaxda ilaahay ku saliday cabsiya faqiirka ilaahay waa ka qaada waxaas laakiin isaguna xaq kale ka murugoono
shoomeernimada maxaa tirahdaan bisaarad baa madaxa wareerisay isagana taasuu madaxa la xoqanaya xaggee tagtaa ciyaalka halkeed geysaa فإن شاء الله هذا إن دينتنا معا كشغينا ديار منها إن شاء الله